marka la isweydiiyo waxaanu ka qabanayno Soomaaliya waxa mahad mudan madaxweynihii isla markaasina hore u ahaa ra'iisul wasaaraha oo lahaa kordhac isla markaasina uu ku lamaan yahay qorshe cad oo dejisan imika waxaanu Soomaaliya ku leenahay xarunta military ee ugu weyn ee adduunka maxaan sidan u leeyahay waa Soomaaliya nabad ha noqoto waxaan se Somaliland in la aqoonsano sanadkii 2012 aan uga hortagnay aan wax yar xusuustaada geliyo qisadan xilligii dagaalkii saddexaad ee adduunku uu bilaabmayay hogaamiye kasta iyo waxgarad kasta oo ku noolaa dal xaalad adag ay wajahayso sida Turkiga oo kale waxa ay kala bixiyeen maabka adduunka waxay sidaa u eegeen dal kasta iyaga oo dal u eegay isla markaasina eegay buur iyo bannaan kasta oo dal leeyahay si ay u xusuusnaadaan sidoo kalena waxa ay ujeedadu ahayd inay ogaadaan waxa ka socda dal kasta sidaasoo kale Ingiriiska ayaa ogaaday howlahaanu ka wadnay Soomaaliya waxay naga codsadeen in aanu shir wada qabanno oo noo wada qabanno Soomaalida aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa shirkaasi wada gudoominay markii uu ra'iisul wasaaruhu aniga uu ii diray fiidnimadii maalinta shirkaasi waxaa xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriisku uu ka dhex ololeeyay safiiradii Afrika iyo kuwii Yurubiyaanka isagoo u ololeynaya aqoonsiga Somaliland haddii aanan markaasi la kulmin xilliguu ololeynayay waxay ahayd mid uu ku guuleysanayay inuu helo aqoonsi Somaliland William Hague xogayihii arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa waxa uu igu yidhi Ahmed idinku maxaad wadaan waxaan idhi Soomaaliya waanu xasilinaynaa idinna wad qaybinaysaan inta uu soo jeestay ayaa waxa uu igu yidhi eeg Somaliland waa dal leh baarlaman ciidankiisii xasiloon waxa uu qalmaa inuu noqdo dal madax bannaan waxaan ku yidhi waxay u eg tahay inaad si fiican u hadlayso laakiin idinkuna aqoonsada jasiiradda Cyprus waqooyigeeda ee Turkiga marka hore kadibna aanu ka wada hadalno aqoonsiga Somaliland dadkii oo dhan ayaa isla aamusay qolka wixii joogay wax kelmada ma ay soo bixin wasiirkii arrimaha dibadda ee Swedishka Carl Bildt ayaa waxaan ku yidhi aroorta waxaan marti qaadi doonaa madaxweynaha Somaliland oo aan kulan la qaadan doonaa maalintii xigtay waxa aan la hadlay oo aan martiqaad ugu yeedhay madaxweynihii Somaliland oo ku yidhi aynu kulanno waxa uu yimid isagoo wata la taliyo Ingiriisa wax kelmada maan odhan hase ahaatee isagoo sii baxaya ayaan gacanta qabtay madaxweynaha Somaliland waxaan ku yidhi idhagayso waxaan nahay laba muslimiina maaha in cid kalena soo dhex gasho aynu kulanno dhowr bilood ka bacdina aan kulan ku qabanno Ankara sidii bay ku dhacday Soomaaliya iyo Somaliland waxaan iskugu keennay magaalada Ankara halkaasaanu ku shirsiin In Ankara we brought Somalia and Somaliland together